السلام عليكم مالي وناكسن مال ولي بقى الدنيا كجوجتو هدي هذا نوجين أنكو حسوسيو آذنها وحيابها وكسي من يهي وحا كمد قوان قادشدا تسالي أهان مid باله waxaan go'aansaday inaan afhebel barto mid kale leh waxa iga go'an inaan miisaankayga dhimo ama aan kordhiyo mid baaqaatu ka jooga dhafar oo leh dhafar dambe leeyuma oga waxaasoo dhan kaliya waa go'aan afka ah marka ay tahay in qofku go'aan qaato waa wax aad u fudud laakiin xaqiiqda waxay tahay in lagu kala tagay kamera dhalinta go'aanadii la qaatay waxa jiro go'aano gaar ah iyo go'aano wada jir loo qaato balse dadku waxay ku kala qaybsamaan fulintooda aanu imaano go'aan qaadashadu kaliya kuma soo hoyso guule ku darso waxa jiro go'aano qaldan oo ku horseedi kara guul darro iyo jab ay adag tahay inaad ka soo kabsato balse hawlwalin go'aanada qaldan ee aad qaadato waxay ku barayaan casharro muhiim u ah guud ahaan noloshaada gaar ahaan go'aanada aad qaadan doonto mustaqbalka dhow anigu mid baan ogahay taasoo ah go'aan qaadashadu inay ku fududayn karto isbedel dhab ah oo ku yimaada noloshaada balse qaabka aad rabto inaad u noolaato hab nololeedka maanta iyo kan bariba hadafka ku astaysan haduuba jiro inaad xaqiijiso qiimaha waqtigaadu ku leeyahay inaad waxna diidi karto waxna aad ogolaan karto dhammaan arrimahaas waxay ku xiran yihiin go'aanka aad qaadanayso iyo waliba sida aad u fuliso inaad tahay qof go'aan leh waxay ka dhigtaa qof la isku hubi karo in badan haddii heshiis ama balan lala galana lagu kalsoonaan karo ama xitaa haddii uu jiro qof adiga cadow ku arko ugu yaraan wuxuu ixtiraami doonaa inaad tahay qof go'aan leh wixii uu go'aansadana samayn kara waxa ka dhiga qof waxtar ku dhexleh bulshada waa inaad tahay qof hadalkiisa ama ficiladiisa ka dhabayn kara taasoo ku xiran sida go'aan qaadashada iyo fulinteeda adigoo aad ku tahay qof go'aan leh inaad tahay macnaheeda ma ahan in mar waliba aad saxan tahay ama aad tahay qof aan go'aankiisa loo dhawaan karin oo marmar waa qasab inaad ka tanaasuli kartaa go'aankaada adigoo hubinaya dib uga laabashada go'aankaaga inay gogol xaar u noqon karto isu soo dhawaashiyo ihtimaala adiga iyo qof ama dad aad aragti ku kala duwan tihiin ama xitaa uu idin dhaxeeyo loolan kale waatu imaamuna shaafici kulaha ardaygiisi fa ahyaanan kasbul qulubi awla min kasbil mawaqif oo macna ahaan noqonaysa marmarka qaar inaad qofka qalbigiisa soo jiidato ayaa ka habboon inaad ka guuleysato sababtoo ah cidna maysan amaanin qofka mara ku dhagga ah oo Soomaalidu markay tilmaamayaan qofka marka la kala aragti duwanaada sax iyo qalad booskiisa taagnaada waxay dhahaan hebel waa qof mara ku dhag ah ugu dambeyn noqo qof go'aan qaadan kara iskuna day go'aanka aad qaadato inaad tahay qof wixii ka dhasha dusha u ridan kara guul iyo guul darro wuxuu noqdaba ogow wax waliba oo aad go'aan ka qaadato waad joojin kartaa sida si la mid ahna wax waliba oo aad inaad samayso go'aansato waad samayn kartaa ha ilaabin kaliya inaad marka hore dadka aad ku kalsoon tahay la tashato rabbigaana tala saarato waxaan rajaynayaa inaad isbedelka aad doonayso xaqiijin doonto kaliya iska hubi go'aankaada inuu yahay kii saxda ahaa kuna adkayso ilaa aad ka gaarto halka aad doonaysay waxaan ku rajaynayaa maalin qurux badan waadna ku mahadsan tahay inaad intaan ila soo gaartay mahadsanidin